tallaalka AstraZeneca oo looga hortago xanuunka muddooyinkanba dunida sida daran u afeeyey ee COVID-19 ayaa toddobaadkan la gaarsiiyey Soomaaliya. Tallaalkaas waxaa adeegsigiisa hakiyey wadamo badan oo ku yaala qaaradda Yurub oo sheegay in tiro aad u yar oo dadkii qaatay caafimaad darro laga dareemay. waxaa arrintaasi toddobaadyadii lasoo dhaafay baaris ku haysay wakaaladda dawooyinka Yurub oo ah hay-ad aad loogu kalsoon yahay marka laga hadlayo dhinaca caafimaadka. wakaaladda oo saacado ka hor cilmi baaristeeda soo gebagabaysay ayaa sheegtay in tallaalkaasi uu yahay mid ammaan ah waxtarna leh. haddaba waxaan khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis kula xiriiray Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ka tirsan xarunta caafimaadka Hennepin waxna ka bara jaamacadda Minnesota. tallaal ahaan uu ka duwan yahay labada tallaal ee Mareykanka aadka looga isticmaalay ee hidde-sidayaasha ku salaysan RNA messengerka ku salaysan ee la yidhaahdo Pfizer iyo Moderna uu ka duwan yahay. isagu ka fudud yahay DNA iyo wax hidde-sidayaasha kale kuma jiraan. virus baa lagu dhex riday tallaalkii oo dhinaca marka la eego aad buu uga duwan yahay. dhinaca ammaankiisa sayfka ammaanka iyo waxtarka labadaas ma tallaalka laga eegaa. tallaalku waxtar ma leeyahay oo wixii loogu talagalay ma qabanaya ammaanna ma yahay. taana waa tallaalka caalamka loogu isticmaal badan yahay maanta dunida reer galbeedka waa kan. jarmalka oo keliya 1.6 milyan 1 milyan iyo 600,000 oo dhows baa la siiyey. markaa waa tallaal runtii aad looga shaqeeyey ammaankiisa iyo waxtarkiisaba. dhibaatadan yaree hadda timi horta lama joojine waxay yidhahdeen waa la suspend gareeya af ingiriisiga waa hakin waa la hakiyey sida intay wixii hubinayaan bay yidhahdeen bal aan u yara joojino intaan saxayno. tiina dee sidaad ogtihiin maanta waxay isku raaceen Yurub dawada qolada u qaabilsan dawooyinka hay'adda ugu sarreysaa inaanu keenin dhibaatadan aan la odhan karin wuu keenaa waxtarkiisuna uu mar walba ka wen yahay dhibaato kasta oo ka iman karta. marka dib baa loo fasaxay wadamadii yaraa ee hakiyey way fasaxeen. guud ahaan Soomaalida markaan u nimaadno doctore aad bay xasaasiyad uga qabaan dawooyinka gaar ahaan tallaalka oo waxaad ka warhaysaa kuwa wadankan aan joogna ku nool lafahaantooda ayaan intooda badan caruurta tallaalka geynin oo sheega in cudurro fara badan caruurta uu ku rido. marka xasaasiyadaas Soomaalidu ay ka qabaan tallaalka halkee bay ka timid? xasaasiyadda ay ka timi in yar baan ka horraysiinayaa. tallaal badan waddankeenna horta inamaba soo gaadho oo tallaal aynu ka xaqablaanahay ma jiro. laakiin xasaasiyadda ugu badan ee ay tallaalka baryahan suuqa soo gashay waa xanuunkan autism la yidhaahdo oo carruurta reer galbeedka joogta ku badan. ayaa nin Ingiriis ahoo daraasad khalada oo uu sameeyey beri hore oo uu isku xiriiriyey jadeecada tallaalkeeda iyo xanuunkaasi. taasaa horta ugu badanoo dowladda reer galbeedka Soomaalida degan ay ka boodeen. ninkiina sharcigii ama shatigii uu dhakhtarnimadu ku shaqaysan jiray waa laga qaaday. jariidadii waxaa qortay waxay ka bixisay apology waxay tiri waanu ka xunnahay oo way ka saareen cudurdaar bay ka bixisay. marka kaasaa horta ugu badan dunidan reer galbeedka. laakiin waxaan doonayaa inaan in yar halkaa ka idhaahdo oo wadamadan hakiyey waa wadamo reer galbeed ah oo inaga dhaqaalo badan oo tallaalkan samaysan kara. markay hakiyeen hadduu tallaalkan u socon waayo tallaal kale samaysan kara kan waxa ka qaldan sixi kara. laakiin dee innaga waddankeenna waxaynu leenahay beer iyo badda lagala soo baxa malaaya ma kalluun iyo xoolo intaasaynu leenahay. intaa midna tallaal ma sameeyo. marka inagu maba lihin awood aynu ku samaysanno oo aynu kula tartanno dad samaysan kara oo tallaalkan leh. xanuunkiina xalka keliya ee ilaahay haynaga dulqaadee wax lagaga qaban karaa waa inay ummadda u yeelato difaaciina laguunbuu ku yimaadaa. wax herd immunity la yidhaahdo af ingiriisiga oo inuu 80% dadka ku wada dhaca xanuunkii dabeetana viruskii meelay tagta ay weydo iyo in tallaal loo helo. marka tallaalkii mar haddii uu inoo yimi oo uu yahayna dhinac kale haddaanu sheegana tallaalkaa la inoo keenay waa tallaal aad caalamkao dhan ka maqlayseen inta baadhis lagu sameeyey ee idaacadahoo dhan ku jiray ee si cad ahoo dharaar ma garanaysaa si wanaagsan loo baadhoo looga hadlayay. marka waa tallaal runtii aad looga shaqeeyey. waxaan taasoo kale weydiin lahaa dadka ina dhegaysanayo laga yaabo qaarkood inay ka shakisan yihiin bal wax qof kastoo ina dhegaysanayo waxyaabaha aad cunayso ama aad gashatay ama dawooyinkaad soo iibsato midna maynaan samaysan. mid kasta waa lagu keenay meel laga keenina waruma haysid. kanaaba labada aan odhan karaa waa ku 100 milyan oo qof qaateen caalamkao dhan la eegay oo markaad eegto tusaalahaan 101 milyan 1.6 milyan iyo 600,000 baa qaatay Jarmalka tallaalkan. 7 qofna waxaa lagu arkay xinjirtaasaa lagu arkay. marka qiyaas
intay ka noqonayso waxaan iyadana markaa wax aad u yar weeyaan waxaan kaga baxayaa waxaan anugu odhan lahaa dadkeena soomaalidii meel kastay degan yihiin fursadan runtii qaaliga inay ka faa'iidaystaan oo xanuunkan sida faraha kulul ku haya ee dadka u dhimanayaan ee aan dawana loo haynin xataa oxygen yar oo dadkani hore uga mareen oo aynaan u haynin in su-aal laga weydiiya runtii waa wax aad u aniga qaldan bay ila tahay tallaalkan marka hadda la eego qofka qaatay intee buu ka badbaadayaa in uu ku dhaco xanuunkan COVID-19 ee beryahanba aan ka warhayno in soomaalida uu faraba-an ku hayo oo dadkii uu leynayo tallaaladan waxa weeyaan 70% in ka badan ayuu yahay effective oo haddii 100 qof lagu tallaalo 70 ka mida xanuunkii kuma dhacayo weliba kan waxaa la yidhaahdaa tallaalkan AstraZeneca wuxuu kaga fiican yahay kuwa kale qofku markuu sii joogaba wuu sii kordhaa protectionkiisu ama difaaciisu wuu sii kordhaa marka waa tallaaladana gebi ahaanba tallaal intaa gaadha wuu yaryahay tallaalkan iminka la yidhaahdo influensaha ama hargabka ee dunida reer galbeedka la iska tallaalo 60% ma gaadho inta uu qofka ka daafacaya ma gaanabaha marka waa tallaal runtii aad u wanaagsan maxaad ugu dambayntii jeceshahay inaad ku soo gebagabayso oo aad fariina oo aad u diraysaa dadka ku dhagaysanaya waxaan ku soo gebagabaynayaa runtii aan doonayaa inay horta waxay la tahay aniga inaanay munaasib ba ahayn in maanta la yidhaahdo tallaal cudur sidaa dadkii u gelayo aynu ognahay inuu caalamkii iyo innagaba dhibaatadaa geystay halkii keliya haye loo hayay ayaa weli su-aal laga keenaya runtii waa yandaro taan doonaya inaan dadka u sheega waxa weyaan dhibaatada haysata soomaalidu meel kastay joogaan carruurta 5 jir ka yar ee soomaalidii meel kastay joogaan 1000 carruur ee dhashaba 127 ayaa dhintay intaanay 5 sano gaadhin wax yar oo laga hortegi karan ay u dhintaan haddaan taa tusaale soo qaado ingiriiska oo sameeyey tallaalkan laga hadlayo 1000 qof in 5 ka yar baa ka dhimata marka dhibaatadeenna ayna haysata waddankeena caafimaadku waa dhimashada carruurta yaryar waa dhimashada hooyooyinka uurka leh waa biyo nadiifa in la helo halkaa inaynu ka warwarno ayay aniga ila tahaye inaynaan isku mashquulin fursad tallaal cudur aan xal loo hayn tallaal mooyaane tallaal loo helay in isagii haddana imika ay dadka qaar su-aalka keenaan runtii waa aad aniga ila qaldan kaasi waxa uu ahaa doctor cabdiraxmaan maxamed madar oo ka tirsan xarunta caafimaadka Hennepin waxna ka bara jaamacadda Minnesota oo khadka